السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمانتين وانيد السلام هيا سود وهذا ما شاء الله سي شير قرية قارسي بيج كليتو آديات وواسك تقبلوها قبلو فارح ولا الكيس معو كي كيرا بشير بالله متانان حاسقون صاحب كيس قرشو درس كيس كنا ولا ورونا قرسيكو شاها جاب كجلكتي مع الشورية بناوين شنتها بقى بقري آديات سو دوادا سي شير قرية قارسية يا وواسك تقبلوا ويادي ما شقيسن الشاه وكحران بير هذه نيود رك رفيانين وحسوب حيسيدي وقريساي هذه بلوغ لو قبتوه ورسول وهذا اد بان دي سلام يا واسك تقبلوا هاك بلو فارح ولا الكيس معو كي كيرا بشير بالله متانان حاسقون صاحب كيس قرشو درسكيس كنا ولا ورونا قرسيكو ساها جاب كجلكتي مع الشورية بناوين شنتا بقى بقري آديات وقت بدن كمسي جريو وحير باروينا هادلو وانا كبحيا آديات بروجرام عصوبان بالله بدونا ديسمبر لحظة إذا بيشن نوصل صعوتو ديسمبر ما يوحدوا هم كجرنا من نوصل صعوتو بيشن هذا بالله وقع يا وحن بلابي دورا بروجرام عصوب او لغو تاغيرايو ciidamada xooga dalka Soomaaliyeed adduunyadan aan ku noolnahay waxay ku faanaan ciidankooda waxay garab istaagaan ciidankooda siyaasiga la dooranayo u tartamaya kursiga madaxtinimada u tartamayo wuxuu CV-giisa ku soo qortaa oo uu yiraahdaa waxaan ka soo shaqeeyay ciidamada dalka nagan ka soo shaqeeyay uu yiraahdaa annagu hadaan Soomaalinahay ciidamadannada waa ka faanaa qabiilkan ku faanaa aadiyad aqoonyahana waa ka dhimanay aad bar wadhiman soo dhawaada ma sha Allah si shir gareeyo waxaan rabaa aad ma shaqeeyran ku jira gaari waa geer halaysan waxaan hagaajisanayaa aadiyad waxaan rabaa inaan wax yar ka hadlo labadan maalin waxa social media qabsaday fanaanka Cabdidaanto iyo wasiirada sportska maama Khadiijo ma sha Allah maama Khadiijo horta waa maamo wanaagsan maamo fiican weeye ma sha Allah dalkan iyo dhalinyaradiisa shaqo fiican oo qurux badan u qabatay weeye aadiyad qofka lama xaqiri karo waa in libintiisa la siiyo weeye ma sha Allah Cabdidaanto daawaday video soo duubay uu leeyahay waxaan tagay meel xalfad ah oo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya uu joogay wasiiraduna ay joogtay yaan tagay buu yiri aadiyad marka stage-kii la iga dajiyay waxay gabadha wasiiradda waxay ku tiri buu yiri stage-ka ka dago meesha lagu baahna dhaanto waxaad aadaa jigjiga iyo meelaha ka timid aad oo ka soo dhaantay baa lagu yiri buu yiri aadiyad hadalkaasi waa hadal aadiyad magaraysaay qadaf ah mana wanaagsanayn in lagu yiraahdo fanaanka laakiin fanaankana wuu soo galay live buu soo galay isna wuxuu yiri laandheere dhalay oo muqdishaawe oo xabadka intuu qaracday magaraysa intuu xabadka qaracday buu yiri laandheere marka hadalka fanaanka aad buu xamaasadeysnaa hadalkaasi hadal wanaagsan ma ahayn gartii uu lahaa Cabdi xataa aan ugu hilin lahayn oo aan dhiilan xataa qofkan haday dumarta xataa waa wasiirad oo hadalka ay tira hadalka waxa qarribay inuu yiraahdo waa dadka laga tirada badan yahay la yiraahdo Soomaaliya la heebsooco weeyaan ana ka laandheeraysan cidna waxbay uga sameyn karto hadalka aniga duqbulow ma jeclaysan hadal aan jeclaystay ma waxa fiican in dadka la isku soo dhaweeyo waxa wanaagsan in dadka la isu keeno waxa wanaagsan in wanaag laga shaqeeyo waxa wanaagsan in gabadhiyo wiilka isku khaldama la isu keeno maaha inaan buunbuurino maaha inaan magaranaysaa cirkaas geyno maaha inaan dadki isku sii dirno oo annaguna daraamar socdaanahay Soomaalida maanta inaan daraamar ka wada dhigno oo view ku raadino oo magaranaysaa si nolol daawado oo aan magaranaysaa ula kala safarno ma wanaagsano Cabdi waa saaxiibkay waa nin odaye waa nin magaraysaa macquule wallahi hadaa isbarataan Cabdidaanto waa nin aad iyo aad u sharaf badan waa nin aad iyo aad u qiimo badan
وانا من قلبي وناكسن وي سيدي أرنتا كل عضي أنيق مقرن كرو waxaan aad iyo aad u cambaareynayaa ragga iyo dumarka la kala saftay wiilka iyo gabadha wada dhashay ee Ilaahay Soomaalida uu ka dhigay la kala saftay baan cambaareeyaa madaxdanadan ka baranay markuu qarax dhacaba inay cambaareeyaan marka annagana waan cambaareynaa waxaan cambaareynaa gurubyada la kala saftay gabadha iyo wiilka la kala saftay baan cambaareen baan dusha kaga tuureynaa aad iyo مام خديجو وزيرة دالينيرادة الصومالية سبورتس كصوماليا مام خديجو ده وزير باتا مسؤول باتاي قف حل هياتاي ما شاء الله وحيابا قاركود إراد كفير ستيد وولاكستاي دادكو دو إراد ودا سودا ويستا دادكو دو إراد سوكيستا دادكو دو إراد كوسي نادان هذا الكا هدي ودبي هاي وآتري أرد جيجا كون نقو dhaantada jigjiga laga rabaa ama jigjiga ka timid hadalka waa hadal gaf ee weeyaan magaraysa hadii arintaasi aad tiri oo xaqiiqay tahay come clean ninkaan raali gali soo dhaweyso hadaadan dhihinna dimaada dhihin cabdidaantaasna waxaan leeyahay adeer macaanade waa gabar dhageyso waa gabar weeye waa hooyo weeye waa magaraysa waa gabar Soomaaliyeed weeye si kasto adoo nin rage aad u xanaaqday oo aad magaraysaa niyo Facebook iyo social media ana ugu gobshan moogtaa gabar kasto ugu khaldanto ana raali ma dalbado magarataadiyad marka cabdidaantow adigana inaad hadda din rag batay meeshad ka timidna nin dhaqan leh batay nin dhaqan leh aadiyad nin magaraysaa abtiyaal iyo adeer fiican ku soo akoray batay ma sha Allah hadalka dadka laga tirada badan yahay waa hadal aan qarino weey waa hadal aan wanaagsanayn waa hadal aanan ogolayn waa hadal aanan magaraysaa ku haboonayn muwaadin Soomaaliyeed in lagu yiraahdo adiguna hadda waad ka sii duwan tahay cabdiyow waxa tahay mas'uuliyiinta Soomaaliyeed dhinaca fanka kamid ah tahay ma sha Allah ragooda ugu caasan loogu jecel yahay uguna asxaabta badan uguna dadka badan ee social media ama meelaha YouTube-ka la iska daawado aad nin la xaqir karo ma tihid nin hoos loo dhigi karo ma tihid ma maleynaya ma garataadiyad dad baa waxay dhihi doonaan duqbilow anigu wiilka abtibar wahay cabdi abtibar wahay waa wiilan abtinahay ma sha Allah abtina ugu aadanahay ma ogolaanayo in lagu gardaroodo anigana ma ogolaanayo inuu dadku gardaroodo aad waa hadalkaygu cad yahay laakiin waxaan rabaa inaan siyaasiyiinta wax sir badan baan ogahay siyaasiyiinta iyo fanaaniinta dabka shidayo ee isku sii dirayo ee cabdina wacayo maamadan iyo dadka ka socdana wacayo joojeed leey wallahi codadkiina la wada hayaa waa la idin wada dhageysanayay beentii barbagandada iyo qaab darrada isku dirkaad wadiiro dhan bal la socda waa la isdaba galaya ma garataadiyad maaha dadka Soomaaliyeed la isku diro la kala fogeeyay ma nabadii nolol dadka inay jeclaadaan baan rabnaa nabadii nolol in la jeclaado oo dadku dhan wada jeclaadaan oo ummadoo dhan u sidnaato ayaan rabnaa ma garataadiyad waa la isfashilinaya aadiyad marka dadka isku dirayo idinkuna waxa idin leeyahay ka digtoonaada oo magaraysaa wanaaga ka shaqeeyo fiicnaanta ka shaqeeyo cabdina hawicina maamadana hawicina aadiyad مام خديجو وزيرة سبورتسكا مام أد بكون جعلنا نبدي نقول بكتر سنتهاي وحياة قار أنا كوكو دفاع كرنو حقيقة نبته وحياة قار كود كوكو دفاع كرنو صوبتان كوكو دفاعي وحاوي هداد تكورتد oo aad magaraysaa groupna soo dhaweysto groupna aad fiijisid waxa weey waa kala dirid Soomaaliyeed weey waa dadka Soomaaliyeed baa la kala diraya waa niyad jab weey marka hadalka kulli aniga hadda baaritaan baa iigu socdo waa la ii baaraya dad meesha goob jooga hatta waxa lagu yiri ra'iisul wasaaraha Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre ku sugnaa baa la yiri meesha mudane Xasan Cali Khayre xafidullah yaa ku sugnaa baa la yiri meesha ay ka tiri gabadhan ay dhaheysay wuu joogay baa la yiraahdaa kamuusa maqreen waxa la yiri waa kulleedii markii la yiraahdo cabdidaanto waxa laga dhimbisan anigu u fahmay inuu ogaadeen yahay maadaama jigjiga iyo wax dhaantana uu qaado cabdidaanto waa nin reer Muqdisho oo Muqdishaabiye oo ethnic ahaan qabiil ahaan hadii la yiraahdana waa beelaha Muqdisho degan way ma beelaha jigjiga degan
maaha aad iyo aad yaysan dhaantada iyo waxan yaysan idin khaldin aad iyo aad laakiin reabti bay u yihiin dadka ma garanaysaa laga xigsanaya magaalada muqdisho sida aadka looga xigsanaya reabti bay u yihiin sidaan ogaa anigu aad iyo aad waana ceeb weeye waxan inay soo noqnoqoto dowladdii baan ka yara caajisnaba wallahi been maaha sababtoo ah maalin dhaweeto waxaa magaalada laga bursanayay oo lagu yiri waddanka isaga bax ninka la yiraahdo Sheekh Umul inta aanan la gelin hawshiisa oo aysan miidiyaha iyo Sheekh Somow iyo howlahan aysan imaanin barta Facebook ku leedahay walaashay maama Khadiijo wasiiradda sportska khad ku leedahay waan hayaa screenshot ba ka qaad qoraal bay ku soo qortay waxay tiri sheekhan la sheegayo engineer Yariso garoonkiisa ka qodbeenayo annaga haddaanu nahay maadaama garoonka Goonis ama garoonka engineer Yariso ay hoos timaado wasaaradda sportska waxay tiri wasaaradda diinta iyo qaafta namayso soo wargelin annagoo wasaaradda sportska dhalinyarada ah oo garoonkan mas'uulka hoos yimaado maanan la soo wargelin bay tiri marka dawladdiina madaxweynaha Soomaaliya iyo xafiiska madaxtooyada Soomaaliya ayaguna de qabanqaabaday ku jireen iyo madaxweynaha muxuu ahaa waxay qabanqaabinayeen siday muxaadarada ku dhici lahayd marka tooshka u weynaa waxa macnaha ifiyay garaysa xaaladdu banaanka ay la timid wuxuu ahaa markay wasiiradda page-ka ay Facebook leeda ku soo qortay ay tiri annagoo wasaaraddii sportiska iyo dhalinyarada ah engineer Yariso stadium kana annaga aan mas'uul ka nahay wasaaradda diinta iyo qaafta wax war kama haynay tiri halkaas horta baashu ka qaraxday oo Sheekh Somow iyo Sufiyada isla waasheenaadiyad marka hadalkan hadda soo yeeray hadda soo baxay wiilkan loo maleeynaya aniga saan u qaatay weey ninkan Cabdidaanta la yiraahdo dadku ogaadeen reabti bay u yihiin abti baan u nahay aadiyad beelaha ogaadeen iyo jigjigiya maadaama uu ka soo jeedo oo nin de dhaantadana ciyaaro u yahay oo heesihiisana dhaantada u badayn yaa tuhun waxaan isjiri macnaha hadduu hadalkaa run yahay wey hadalkaa hadduu run yahay oo wasiiradda sportska maasha Allah xafidullah ay tiraahdo wariyaa orod jigjiga ku noqo dhaantanaga meesha kaba ran waa deeska waa la garanaya macnaha hadalka dubkeen laga qaado oo ma garanaysaa la bahdila hadalka faa'iido badan ma keenaysa aad soo sax ma waa sax soo qora ha faa'iido badan ma keenaysa hadii ninka loo maleeyay inuu yahay ra'iisul wasaarihi ba fadhiya hadalka hadris ra'iisul wasaarihi ummadda Soomaaliyeed xafidullah mudane Xasan Cali Khayre iyo wasiirro kale oo fara badan ba fadhiyo meesha joogo haddii hadalkaas aan la gabasho lahayn oo ninkaas uu hadda soo sheegay ay dhab noqoto xaqiiq noqoto dew ethnic ba loo socdaa meesha ma garataadeen laakiin meel khaldan buu ku dhacay baan anigu filaya maadaama Cabdidaanta dewanin muqdishaawi reeraha hadda muqdisho u badan yaa degan weeyaan ka soo jeeda aadiyad laakiin reabti way yihiin nimankan dhaantada lagu xanto la leeyahay marka waxaan leenahay ma sha Allah ilaahay ha kala qaboojiyo ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogto anigu activist ahay duqburow aadiyad nabaduna waa jeclaa uga Soomaaliyeedna waanahay nabadda aadiyad baan u jeclahay ummaddu inay isu soo dhawaato ummaddu ay mid noqoto ummaddu ay wada shaqaysato aadiyad baan magaraysaa u jeclaa hadalkaas haddii uu dhab noqdo oo ra'iisul wasaarihii dalka Soomaaliyeedna uu bartaa u fadhiyo oo wasiiraddii dhalinyarada iyo sportiska Soomaaliyeed ee dhalinyarada waa in wasaaraddaas waa tirtiridda qabiilka la yiraahdo ma garat si kala hadaan idinku dhigo waa tirtiridda qabiilka loogu talagalay inay qabiilka dhalinyarada ay ka tirtirto ma aha group gooniye ama reer gooniye inay wasaaraddaasi ma garanaysa waxa loogu talagalay inay qabiilku tirtirto fanaaniinta sportiska dhalinyarada la suka keenada ma xaqiijin karo ma garanaysa hadalan xaqiijin karo anoo duqbalowe ma laakiin haddii ay dhab noqoto oo hadalka til xaqiijo rakalo mas'uuliyiina meesha farbalada oo la yiraahdo waa runo hadalka uu soo baxay hadalka wuxuu noqonayaa malkulmood buu noqonayaa wallahi beenno malkulmood buu ku noqonayaa groupkaasi waxa weeye dhibaato badan buu keenaya ummadii waa in dib hadana referendum la qaaday noqonaysa adeed referendum siyaasadeed oo xaaladeedu ay badan tahay gaar si kale oo shay referendum la qaado iyo badan tahay marka ma sha Allah waxaan idin leeyahay ummadda Soomaaliyeed wanaaga dhinaca wanaaga loo bato wallahi beerwa dhinaca wanaaga loo bato
dhinaca fiicnaanta ha loo bato maasha allah dhinaca khayrkana ha loo bato maama khadiija maama fiican anigu inta ka garanaya ama aan ka daawaday ama aan kala socdo kulli maama hadalka ka soo bixi karo ma ah midda kale ninkan Cabdiliire Cabdidaanto sidoo u hadlay hadda si wanaagsan ma ah si qurux badan oo nin fanaane oo caane oo ma garanaysaa dadku ay daawadaan sidiisu ma hadlay fanaankii dambe isku dayno nooca u hadlana with ciwo because of wad xanaaqi kartaa oo emotion wad noqon kartaa laakiin intaad public soo fariisatid aad tiraahdid anigu laandheera dhalay baanahay laandheera dhalay baanahay naag laga tira badan yahay naag ma garanaysaa qabiilkeeda uu hooseeyo oo la yaso Muqdisho waa ceeb wey totally hadalkaasi waa hadal nin weyn uu ku hadlo ma ah wallahi beenma hadalkaana waxaan ka codsan lahaa walaalkay inuu tu public u yimaado inuu raali gelin bixiyo kow waa gabar wey labo waa hooyo Soomaaliyeed saddex waa gabar walaasheed wey afar inaad qabiil aad kullaan dheerayso tiraahdo waan ka reerkayga kama fiicnaan kartid wallahi inaad ka fiicnaan kartid cid ka fiican qabiil ka fiican haba yaraatee Soomaaliya ma jirto qabiilada Soomaaliyeed oo dhan waa isku mid weey magaraysaa haddana boog la dhoobayo oo ummadda fanaaniinta iyo macallimiinta iyo sportiska iyo siyaasiyiinta inay qariyaan oo la yiraahdo oo la duugo hadal loo baahnaa ma hadal nin caane oo mas'uul ah oo fanaane intaad public uu soo fariisto inuu yiraahdo manaagi xun oo ma garanaysaa qabiilada la yasa oo ma garanaysaa nooc waa ceeb weyn ku hadla ma garanaysaa gar walbi xaalad kasto hada loo qabsan lahaa hadii la fariisto oo uu gartan heli lahaa ninkan oo la dhigi lahaa waa laga gardaray wixii waxa laqay wixii dhintu duduubay waxa laqay ereyga ah maano reer hebele waa ceeb weeye fanaan baatay waxaad luus garanaysaa kumanaan kun oo shacabe oo ma garanaysaa adiga aan qabiil iyo reer iyo laandheernimo kugu taageersanayn oo ka soo jeedo dadkan hadda adigu aad hoosta u gelisid cid geli karto male hadii mid loo fiiriyo hadii hadda maama Khadiija iyada wasiirada oo baabuuro lagu ilaalinaya dhageysh baabuuro lagu ilaalinaya oo wasiiradaho 10 baabuur Cabdi Bile ay daba socotaa oo laandheernimo haday waxdeed laandheernimo tagaysa oo shakhsiga laandheeriye ayada baabuuro lagu wada markay magaalada marayso inay wasiirada socoto baabuur bullet proof madow ku socoto laandheereynayso oo ciidan Soomaaliyeed oo qabiilada Soomaaliyeed ka soo jeedana ay ilaalinayaan oo la daba socdaadiyad marka hadalkaas dilay Cabdidaanto hadalkaas asagu toogtay oo aan marnaba lagu taageeri karin oo aanan lagu garab istaagi karin sababtoo hadalkaasi hadal nin fanaane oo caana uu ka soo baxo ma ahayn si kasta oo u xanaaqo si kasta oo loo ciiro hadal niyadiisa qalbigiisa soo gali kara xataa ma ahayn marka wuxuu waan ka hadlay maama Khadiija adigana wasiiradii dhalinyarada tahay ee Soomaaliya waxa laga rabaa inaad diblomaasiyad oo dadkan iyo fanaaniintan iyo waxan oo dhan isku wadid oo hal meel u jihisid baa laga rabaa ma ahna groupna hoosta gashatid groupna ay baxaan aadiyad marka adna guuleysan ku leeyahay maamo waa ku jecelnahay anigu ku jecelaad baa ku taageera wadna guuleysanaysaa hadii Ilaahay yiraahdo laakiin baaritaanka hadalka hadii uu dhab noqdo hadalka uu ra'iisul wasaarihi ummadda Soomaaliyeedna uu bartaa u fadhiyay oo ethnic gooni ah la yiri orda ku noqdo wallahi hadalkaas aad uga fiirsadaya ra'iisul wasaarihi ummadda Soomaaliyeed mudane Xasan Cali Khayre uu fadhiyay wasiirkii sportiska Soomaaliyeed ay wiil Soomaaliyeed ku tiraahday tiri wariyaa jigjiga ku noqo meeshan dhaanta lagama rabo waa hadal weyn wey waa hadal reform keenaya wallahi been ma haysnaara wax joog ama wax ma garanaysaa baal kale tiimaanaysma waa hadal very serious wey oo very serious loo qaadanayo ma garanaysaa hadalkaas Ilaahay waxaan ka baryayaa oo Ilaahay weynaa untaya ka baryaa inaan ra'iisul wasaaraha hortiisana lagu dhihin wasiiraduna aysan dhihin oo hadalkaasi uu noqdo hadal meel loo waayay inuu noqdo Ilaahay ba ka baryaa wallahi been ma la qaadan karo in ra'iisul wasaarihi ummadda Soomaaliyeed halka fadhiyo waa mudane Xasan Cali Khayre iyo wasiiradii sportska in muwaadin Soomaaliyeed la yiraahdo stage-ka ka soo dago dhaantadaada ma rabno
oo ku noqo jigjiga lagu yiri waa ku noqo jigjiga which means muwaadin Soomaaliyeed yaa magar waa reform by money waxa weeye waa xaalad aad u xun weeye Mareykanka aad arkaysaan aan hadda ku noolahay contact state wuxuu ka kacay waxa weeye waa wax sidan oo kale basiide oo dadka u maleynaynin inuu wax weyn noqon doono dad ba shaahay cabaayay bakariga shaaha cabayeen baa lagu yiri sokorta shaaha aad ku karaysaana canshuurkeena biyaha aad ku karsanaysaa shaaha ka dhigaysaan canshuurkeena markaad karisaan oo shaaha karsataan oo caleentii iyo caanihii iyo biyihii aad iyo sokortii aad isku karisaan oo ay garanaysaa uu shaaha noqdo kadib inta aadan cabin hadda canshuur bixiya yaa lagu yiri aad marka muwaadiniinta dadka Soomaaliyeed ayagoo saas oo dhan canshuur tu bixinayaan وانا دي سلام يا هذه ها اوكي